iyo libaaxii qaybtii labaad ee sheeg waxay inoo maraysay iyada oo reerkii dhoofay oo cadanaaday anigana la ii keenay reerii magaalada markaa waxaystay reer kamida oo laygu u shaqee reerkiina muddo markaan u shaqaynayay 6 bilooda maamadii furayaashii guriga igu wareejiso igu tir reerka gabadhiisi waa adiga waxaanan oran karaa waxa soo dedejiyay maalin subax kamida baan anoo kala hagaajinaya miiska cuntada lagu cuno dining roomka loo yaqaanaba waxaan ka helay lacag ku jirta envelope ama bishqad dabeetana lacagtii anigu markaa ma garanayo tiradeeda lacagtii baan meel dhigay odaygii guriga iyo islaantii guriga oo gaari ka degay oo saa u ordayba gurigii soo galay waan ku cusbaa markaa reerko bil baan la joogay hebla bay igu dhaheen milgo hee maaragtay lacag halkan saaran markaas intaan naxay waxaan ku dhahaa waan qaaday koobadiinka qolkiina hurdadaan idiin saaray maamadii markaa galabtii inta ii yeedhay waxay ku tii mataqaanaa lacagtad meesha ka qaadamay $20,000 bay ahayd maana 20,000 macna u garanay anigu wuxuu baan rabay meel aan dhaxamaha kaga hoyd anu waxaan gabadh yar miyi ka soo baxsatay rafaad adduun soo mudatay magaalada aan cid ku haysan kaliya waxaba nasteexi ee reerintan seexdan soo tooso gurigoodan ammaan ku dareemay intaas un baba aniga muhiimiye lacagahan waxaan meega muhiim bay yahay marka waxay tiri macnaha waan qaadan waayay alla wanaagsanide waxaan ku dhahay dib male anigu halkan uma aanan inaan waxado ee waxaan u imi inaan xoogaygu xalaal ku shaqaysto marka laga yaabay in taasi soo dedejisay reerkii man haddaba waxay reedan kala barayaa islaantu 6 wiil iyo hal gabadh bay dhashay gabadha weynagii ka soo hadalo waa Hinda waa gabadh inaabtigeedu England ku maqan guursada iyada hooyadeed ba gaxaysa inaga reeba 6 wiil 5 wiil ba halkan jooga wiil waxa la dhahaa Khalid waa wiil da ahaan aanu isleegnahay kaftan badan ciyaar badan jikada igu soo gala weelka ila dhaqa markaan maxaan ku dhaday xumbada saabunta madaxayga ka shubshuba is eriyano qadada hadaan karnay intuu la keen ku dhadhamay markaan xamaad karin maanta markaan xanaqar wallahi waxaan kana naa cusbadaha iskaga badimay wanaagsan waa baasta yar hadaan meel ku cunayaan ku reebtay intii soo agfurtay intii macaanad adaa la haray soo maaha waxba lama nahay soo nagi qadada miiska VIP da idin geynay tana ka macaane abi ku jari waa ka waxa maxaa dhulkaad fadhidi gabadha islaamiyad ku ciiraysa jikar waxa wiil kaftan badan habeenkii haduu guriga ku soo rawaxaya cashu gaari igu soo qaadi jiray hadda ana shaqaalay guriga ila socod cashu gaari igu soo qaadi jiray soo cashadaas waa albaabka gub naatiyay cambaray markaan dhada war waa maxay de baan dhada suugan ka xijaabtu naadi anigu kuma geeyo waxa iga xijaabanay waatan cashadii kaalay wada cunne war cashan de idin karina waxa iska dhaafo kaalay wada cunne waxa nin kaftan badan social badan ila xanta wax reerka aabiyo hooyadii iyo ciyaalkooda maxaa ila xanta eedooyinkii adeeradiisa imanaya xabad igu kala sheegata ma aragta lasiiqaad hay saas ismay odaygan ma aragta islaantiisa ka adiga waa ka odaygan kala maarto waa oday qumaya saddex islaamood buu leeyahay mid walba halkaas uu kaga taagay wuxuu ahaa mid aan isugu kaaya dhacday baan idinku oori kaasi waa Khalid halka ay dhigni kaftan badan social badan maxaan ku dhahday hadal badan ila faraka ciyaara odayga iyo islaantu dhowr jeer ugu maagana wariya ka xishood inanta waxayna tafra ku tagtaagaysa baanaha laakiin mararka qaar aniga waan murugoon jiray waayo aniga hooyo malahe aabahay wuxuu noqday aabaha maamadiisi ay maaragtay maamulayso raaliyaada waxaana dadkan emotionka u adkaysan karin soo raaliyaada markaan meelahan ka qaylqaylanayo qof adag baan idin la eekay laakiin waxaan ahay dadka aad u dhibto markaan arko qof wax ka cabanay waxaan ahay qof aan hooyo lahayn aabahay islaanta cadowga u gacan galay oo ay adduunyadii ii soo uriyeen ayaydu hooyo way dhimatay islaantii indhaha ay soo korsatay hooyaday walaal kale iimay samaynin oo aabahay iyada ayay aniga igu curatay soo mararka qaar cidlayntan iska fadhiista markaan arko reerkan isku faraxsan hooyo iyo aabo iyo walaalo iyo adeeriyo eedooyin soo booqanay dad is wada jecel laabtiis wada gelay markaan arko meel gaar intaan fadhiista baan iska murugoon jiray Khalid wuxuu ahaa qofka qura marka ay dareema intuu soo ag fadhiisto saa ii soo qabtaan oo fadhiyo igu dhahda maxaa ku daracay maanta maxaa ku soo hormaray maxaa dareentay waxba markaan idhahdeen wuxuu dhawaan dareemayaa laakiin nacasay soo anigu walaal kula meehi aniga walaal kula ah hooyo ma soo celin karno ilaahay ha u naxariisto waayo Khalid waa qofka qura reerkan aan uga sheekeeyay sheekadayda reerka inta kale imabay oran xagaad ka timi maamada aleele maalin waxay igu tiri hooyo maad leedahay hooyo meemel hiban quraaba maad leedahay bis laakiin Khalid waa qofka qura ee warkayga haya ee isu farda baxnay isaguna waxyaabo badan oo reerkoodani ku sameeyeen iiga sheekeeyay laano qoys kasto wax haysta ama faraxsan ogow waxa jira waxyaabo u qarsoon soo isna waa qofka qura wax iiga anagu qofka qura u farda baxayaan ku dhahay saayis marka isagu waa halka shakhsi ee reerka ii og meeshan ka imi soo isaga intuu soo ag fadhiistay qofka qura dhihi jiray maanta shaydaanka ku soo hormaray maya markaan dhado dhihi jiray maya waxaad ilowdan anigu walaalka ahay nacasay ina keen baxnay
hooyo intuu iiga fasax qaaday maamada guriga dhaho hooyo meel bay raacsan war gabadha maxaad karto hooyo please dee meel dhow halkan ay igala soo noqonaysaa way anigu guriga shaqaalanka intuu iiga fasax qaado wax yar isugiya intuu iiga fasax qaado meelaha wax laga cuncuniyo macmacaanka igeeyo meelaha wax laga soo daawado shaleemada igeeyo waxa qofka qura iga farxiyo Khalid soo waxa qofna dadka kale aad isaga dhownahay gabadha uu shukaansada guriga iman jirtay aad baan u ixtiraami jiray waxa jirta marar xataa iga masayrtay aniga qaad waxba naga ma dhaxayn laakiin way iga masayrtay oo markasta markuu naayatiyay arko iyadiyo fadhida isagoo raba inuu la farka cayaaro isagoo idacaayadeynaya isagoo mararka malaha uu iyada u taga aad igaga sheekayna way iga masayrtay laakiin maalin baa intuu ii sheegay ku dhahay isagoo calaysan ku dhahay war maxaa dhacay buu iiga sheekeeyay markaasaan intaan gaar u la hadlayo la linkooda waan aqaanay ka wacan ku gurigaygu kale baan kitaab jaamaca u mar inaan naga waxba naga dhaxayn inaan wanaagsan bad haysata ha iska dayacin baan ku soo wuxuu ahaa Khalid isagu waa kaas ninka ku xiga ay isaga ka weyn isaga kama weyna reerkaba waa ka ugu weyn horta nin Dubai buu degan yahay anagu isma naqaano 60 nin kalena jaamacad buu ku maqayo isma naqaan afar baa inoo soo haray Sooma afarta mid waa Khalid nin baa jira weyn oo ninka weyn ugu weyn Dubai degan ninka ku xigaya Mukhtaar baa la yiraahdaa laba caruur rajac ah guriga ku haystaa waana miskiina oo degan marka dambe xildhibaan buu noqon doona laakiin markan uu dawladda u shaqeeya waana aad u degan oo miyir badan oo naxariis badan labadiisi caruur ahaa ee yaryara anaaba hooyo u noqday waa midna waa 6 jir midna waa 7 jir oo wiil iyo gabadh timahaan u tidcaa waa la faraka cayaaraa jikada markay ugu yimaadaan xumbadan ku la qasto meedada sida dumarka qaar hayga taabanna weelka waxana kale ila xala markii qoyaan hadhow intaan u qubeysayaan dhar kale u xiraa sheeka mii baan uga sheekayo bacawda waca iyo waraab iyo wax isu eryanaya wayba igu haystaan ilaa ay gaareen beheer ay dhahaan ama qolka iyaga noogu soo guraan ama anagu qolka ma seexana adan kula seexanayna oo intaan habeenkii qolkooda u raacon la soo seexdo kadibna aan dib uga soo gudo habeenada qaarna intaan ku gam awaalka igu bareeba maxamedna way Mukhtaarna waynu ka nimi labada wiil kale waa laba wiil oo dhalinyaro mid high school ba hadda ka baxay jaamacadda bilaa midna jaamacad u dhigtaa wadad iska soo shala ka high school ka baxaa nin dhib badan oo faraka cayaar badan oo dib jira oo markasta intuu ii soo dhuumtay kale aabayga la hadal kale hooyay kala hadal reerkii waaniga idin soo wada sheegay ninka maqan Maahir baa leeyahay Maahir telefoonku baan maqlay isagoo ka soo hadlaaya reerkoo la yaacay haabo Maahir baa saayid mar sidan ka dareemay wuxuu ahaa nin aad u asxaab badan way waxaan iman jiray hablo iyo wiilal badan oo reerka soo booqan jiray wali xiriirin jiray marka waxaan ka maqlay jiray waa asxaabtii Maahir soo anaga Maahir isma naqaano magacayga mala halka inuu ka maqlay aniguna markaas halkaas ka maqlay jiray laakiin anaga aqoon isma leeyahay sheekada waan dadajinaya sababtoo tay mar raba timeku inuu wax badan oo kale inaga sii cuno waayo waxaan rabaa inaan soo ururiyo haddii kale aan idhaahdo sheekada qodob baan u dhigayaa de sanad bay soconaysaa heesheeday horta heedhe marka fiidiyoda la duubay ma laysi soo hagaajiyaa anigu shalmada guriga ku joogu baan idinku soo duubaaye igu qaatade wareer miinimada igu qaata maamadii markii ay baxday waxay igu sii ballamisay meheradaha iyada qayb bay ka mas'uul tahay inaan qaybtaas wixii soo kormeero hablaha soo weydiiyo wax oo aan ugu gudbiyo raboodkaas iyo guriga inaan shaqaala u doono adiguna aan mas'uulkii reer ka noqdo odayga markaa adeero wuxuu ka mudaharaaday wuxuu cunto aanad milgay adigu karna anigu cuni maayo ama shaqaale keensada ama iska daya wixii kale marka ciyaalkiina way ku dabadeed waxa no na kale hanoo keeno cunto karinaysa markaas hooyadu waxay dhahday gabadh guriga nadaafadii dharkii waxa ka shaqeysa doon cuntadana adigu kari dhib male so anigu subaxii inaan dara wali reer ku leeyihiin waa lay qaadaa waan soo adeegaa meheradaay waxaasan soo maraa wixii warbixin aan ka soo ururay maamadan laynka uga gudbiya ayadana soo wacda maamadii inantii way dhistay 3 bilood bay Dubai ku joogtay oo inanta ay la sugaysay intuu ninku gaxaysanayo hooyo guriga cidlada haygaga tagin 3 bilood kadibna wiilkii weynaa Dubai deganaaba gabadhiisa u mushay kadibna halkaas inaga raagtay adigu muddo taqriiban sanad ku dhow bay naga maqnayd maalma kamid ah ila soo hadashay waxay ku dhaday Maahir baa imanaye reerku Maxamed bay dhahan laakiin Maahir bay yadu dhahda Maahir baa imanaye hooyo qolkii qol martidu leedahay oo qolka hurdada intuu ku xigo isagu laakiin dayrka u jeedo barandale oo qol weyna qolkii uu hebel deganaan jiray waxa weyn odayga guriga la walaalkii England ka yimi mar qol uu deganaan jiray wax alaabtii lagu ururiyo marka alaabtii odayga loo dhigay waa la raray oo qof baa la siiyay reerka kamid ah oo family-ga qolka uu hagaaji Maahir baa imanaya lacag inta doonto qaad waa ku kaas adeer baa lacagtii ii keenay suuqan aaday qolkii baan horta qafashkii wixii ku jiray ka aruuriyo ka gurnay aniga dhalinyarada guriga joogtay qoladan istamar laha la yiraahdo anigu yeernay gurigoodan baa la rastay marin la rinjiyeeyo la nadiifiyay de waan soo sharaxay gurigii igu qaad gurigii waan soo dhamaynay kadib suuqan aaday waxa inanta aan helnay waxa la dhahaa Muuna iyadana adin baro waa hooyo ilaa 60 jira ubad bay u shaqaysataa
oo ay soo shaqo tagtay ay dhashay hooyadeedu hayso aniga muuna israacnay waxaan soo iibiyey hurdo isu eeg oo laakiin sariirtu nafar iyo bar tahay labadii koobadiin kabarhkii tuwaaleedkii sariirtii oo isu eeg fadhi yaro kooja oo 3 kursi ah miis iyo kun computer loo isticmaala miis iyo maxaan ku dhahday 2 kursi waa ku kaas miiskii koofeyga xabadii rooga ahayd daahiyadii war waan ka soo tumay baan idin ku uri waxa laali wixii suuliga lagu isticmaali jiray qof dabad ka yimaad ka garanaysaa inkastoo reerku reerka ilbaxa ahaa waan soo dhameystiray tuwaala ma tiri maxay ma tiri waa ku kaa khamiis buu soo degayay waxa doonay maxaan ku dhahdaayay aabihii iyo dad kale oo asxaabo badan maalintaana ribaan dalbanay waxa jira oday saylada u jooga reerka oo ay maamadu igu sii xidhay reerku raa la bari badan had iyo jeer dad dibadaha ka yimi iyo dad kale dawladaha ku jira iyo dad qanacsaday waxba inta guriga wax lagu kariyaa oday waxaan ku dhahay ri soo qaad macaamaradeedii ri soo qaadoo soo gaxeeyo qofkii qalayna ii soo gaxee qofkii qalayay ninkiiba la keenay lacagtii baan u dhiibay ridii baan moofaynoo maraqaynay hilib geeliyo hilib lo-aadna waan soo karinoo isagana duqadiyo waxa adigu casuumad baa meesha ka dhaxday inankii waa la keenay waa la qadeeyay inantii kale markaa muuna anigu jikadan ku jiray baa kamid ahay dadka dhigdhigaya cuntada markaasuu wuxuu dhahay hey milgo dee malaa magacayga hore maqlay haa unba iyaduna ku dhahday markii casuumadda dhammaato la kala dardareeray ay yidhaaheen dhalinyaradina warda waa daalanta iska seexo muddo dheer baad soo saaray diyaaradda waa inoo iyo berito ayuu odaygu wuxuu dhahay milgo adeer intaan soo baxay suu dhahay maadaa milgo haa uma laba milgaatin inantii kalena milga ku lahaay maya muuna la dhahay waxa laga yaabaa iska ka camiraysay adeer xageed u hagaajiso waxaan furi waa kana ku yara walaaliyiin tus qolkii sidii buu maxamed ku degay maxamed waa nin xirxiran macnaha maaha sidii khaalidan idinka sheekayna kale waa nin muxtarima aan hadal badnayn waalidka waxaad moodo qof inuu u fadilan yahay waalidka u fadilan had iyo jeer waalidku waa weynayo buunbuuniyo laakiin markay xaaja murugto ee reerka wax la isku qabto waa qof qowle waxaliya waaniga idin sheego rag bay u badnaayeen intaa waa la isku dhacayaa xoolana meeshii way yaalan xoolaa waa lagu murmaa marka had iyo jeer muran dhaco qofka qure waxaliya isagu hayn looga dambaynin waxaad moodaysaa qof isu haya reerka maca ka weyne xagaa ku maqan kan halkan jooga maxaan ku dhahday kuwa yaryar odayga maamada waxaad moodaa qof silsilad isu haysa inuu ahaa qof kasta wuxuu yidhaahduna raalliba ku ahaa waxaad mooday qof reerkoo dhan aaminsan yihiin inuu ahaa waxaa jirtay gabadh ay maxamed isjeclaayeen oo intii uu maqnaa guriga imaan jirtay anagu markaa inantii iska saaxiib baanu noqonay waxay ku dhahday ka hor intaanu halkan ka tegin maxamed 4 sano maqan yahay la sheegay intaanu halkan ka tegin ayaanu jacayl ahayn iminkana waan wada xidhinaa waxaan sugaya intuu imaanayo markuu yimaado meherkayga arooskayga dhacaya damiyaanad noo malxiisaynin maya diyaar baan ku dhahay maxamed hadaan hadalka igaga maqashin maahirun baan u jeedaa ila socda labada magac waxa la igu dhisay galadha laakiin reerku maahir bay adigu isticmaalaan maahir waa yimi maahir sidaasaa uu ahaa qof iga urursan ana aan ka urursanahay mas-uul baanu labadayadii noqonay laannu xaggii gurigana anaa maamo ka ahaa xaggii reerka kalena waxaad moodaysa isagu inuu aabba ka ahaa odaygu wuxuu igu dhahay aniga taladii way iga wareegtay wixii reerka looga baahaya ninkaasaad kala xidhiidhaysaa maahir la yidhahdo so waxaanu haynuun 2 qof oo reerka wada hayo hooyo aabbo kaloo matalaaya gabadhii maahir la saaxiibka ahayd ee ay jeclaayeen sagsaag badan bay ka dareentay maahir way ii cabatay waxay ugu dhahday maadiga la hadashid waxaan ku dhahay walaale hadduu nimankan kale ahaan lahaa waa la kori lahaa way iyaga markay isku dhacaan xataa jacaylooda waxaana waree ka xishooda habla ninkaas waa nin urursan marka aqoon badan isu melin walaale iga daa marka waxay leedahay ma fahmayo siduu ii ahaan jiray iima aha intii uu soo noqday weeyaan way guriga imaanaysaa moogta waxaa dhahaysa waa lay diiday meeshiisii inaan galo soo guriga imaanaysa waxaa dhahaysa xaafadan kugu sugay ma imaanaysa haa waan imaanay maba imaanayaba nabar xaasidkaa ka warama 10 ama 11 habeenimo soo rawaxaya qaadna ma cunay sigaarna ma cabaya iyada darteed waan isriday walaal iyadu ka jaakidaya habeen walba markay tiraahdo waan tagay waaye nabaday ayuu guriga yimaadaa habeenkii dambe ayay maxaan ku dhahdayay intaanay horta iyadu may odhanin bay mar labaad igu celisay markaas waxaan ku dhahay bal waan eegi doonaa hadalkii on weli noo dhammaan ayuu galabaa ka mid anigoo gurigu beer buu leeyahay anoo beertii inamadii rusheynayay shaahintan isoo kariyey anigu dee waxaanay qof iska hambal miyaa la dhihi jiray iskala sheekaysanaya ayuu guriga goor gaaban kasoo toosay malaha shaqa muu lahayn galabta oo iska soo furto halkana galabtii ku cawaysan dhalinyaro iska warwaramo nabad maahirow inamadii beerta waan fiicanaho inan weyn deyrkana fura beertana ka shaqeeya inan kaloo isagana u yimaado isaga saaxiib yihiin markaas wuxuu dhahay line markaan ka soo waco aan idin sheega halka intaan hadalka line markuu ka soo waco anu mobile ma sito hello markaan raado waa maahir baa ha qofka iigu dhow
wiil ama gabadha markaa guriga joogay dee isku cid yihiin inta badan gabadhi ma joogtay aabo waxa ku doonaya maan hooyo sankan ka gelayaa bas waxaan ku weydiiyey laylanka markaan kaa soo maxaad ula carartaa qof kale ugu dhibtaa dee waxaan dhahay aniga haddaad ila hadlaysa ila gurigaynu isku aragna habeen iyo maalinbe dina reerkiina doonaysaan ku mooday maanigaad ii socotay dima wuxuu dhahay qofka xataa iska waran iyo xagaad kasoo hadlaysa iyo maxaa jiri baa la yidhahdaa aad codkayga garataba waayaad ula roortaa dee anigu saasaan moodayay taleefon ma lihid mobil ma wato mobil ma lihid markaas wuxuu dhahay oo waayo markaasaan dhahay laylankaasun baanu dadka kala qorana laylanka gurigumanka waxa waa laylankood macaa mobilada wuu gala wuu u furay habeenkii wuxuu ii keenay maxamed taleefon mobil ahoo bogoskiisa ku jiriya kaadh dul saaran oo lacaga ku jirto horta mobilkii hore halkaasna aanu ka qaatay wuu iga soo wici jiray reerka ciyaalkoo kale haddii wax u baahdaan kuwa yarare walaalkii dhalay baan sheegayaa meelaan inta badan u gaxgaxayn jiray markaasuu berigii dambe intuu igu arkay dhowr jiraan oo sii wada xagaad geenaysaa meelaha lagu ciyaaraan galabtii geeyaa baan ku uri ayuu markii dambe wuxuu uri jiray jimco kasta lacag buu iigu soo diri jiray jiray gaxe ciyaalkii aabahood isagaaba uga ogaal badnaa habeenada ka mid ah ayuu reerka yidhi casuumad baan geynay macaa faamilka oo dhan hooyadii weli way maqantayaa marka anigu waan ka hadhay gaanu shaqaalu ma reerka waa soo ma lacag kama qaato markii maamadu igu tidhi inantii reerkaa tahay oo laga bilaabo saacaddaa maanta wixii gabadh reerkooda ku lahayd baad ku leedahay dahab iyo xariirba dee waan ka xishooday inaan dhahdo lacag baan qaadanaya so aniguna markaa lacag kama qaato ilaa iyo maamadii tagtayba wax lacagayo ilaa iyo bil horey joogtay wax lacag kama qaato inantan laakiin lacagteeda waanu siinaa bil walba laakiin gabadh reerkoodii la joogta sidii aan ahaa dhaashigayga gaarbay insaanta iigu soo dirtaa haddii hadiyad soo dhiibaysa hadiyaddeedi way ku jirtaa maxaan ku dhahday ciid hadaytay gacantaa layga saaraa adigu waxaan noqdon gabadh gurigoodii joogta laakiin ma raacin habeenka carruurtii baan u labisay dadka kale wada labisteen muuno inanta shaqaalaha ka mid hadiyaduna way raacday ciyaalkii markaan irinta soo gaarsiiyey gaadhina maxamed baa waday ama maahir gaadhina waxa waday adeero ayuu wuxuu dhahay isagoo nama raacaysid markaasaan dhahay maya wiilkii carruurta dhala wiil iska miskiin ahaa baa dhahay walaal maxaad noo raaci weyday adeera wuxuu dhahay seed wuxuu wadaa milgeedee markaas waxaan dhahay maya guriga hawlo badan guriga hawla maxaa kaa galay ciyaalkii yaryara labadaasay guriga huba maano rac namaana dhalay muuji dee kolabatii dhirtay way dhimantay ilaahu naxariista anuu kale hayde adigu ciyaalkii markay diideen waxaan ku qasbanaaday inaan dib u soo labisto aniga waxaan raacay gaadhiga maxamed waxaan raacay aniga iyo labadii carruur ahaa inantii muuna iyo wiil kale afartayadaas shan baanu ahayn baabaan raacnay anigu xagga horaan saarnaa markaas oo kursiga horaa lay baneeyey markaas si hoose wuxuu u dhahay markii aan gaadhiga soo karay reerkiiba casuumadda uma fidiyeen haddaanan moodayniyo inaanadna raacaynin ilka dhaadheer iskaga qosla hoteelkii baanu tagnay waanu soo cashanay hotel aan dhowr jeer xaafadda u raacay markii maamadu joogtay oo 5 stars oo reerku malay macmiil u leeyihiin kasta markii dambe odaygu iibsadayba ad waa soo cashanay waan soo laabanay maxamed taleefankiiba wuxuu ka bilaabay waxoogaa hadallo dareen le aniguna waan kasii fogaanayay waayo ma rabin inaan shaqadaa dhex galo markii dambena si cad buu iigu yiri aniguna waxaan ku dhahay hawshaa kuma jiro habeenada ka midaba wuxuu qolka igu soo qaracay xilli aad u dambe dadku hurdaan waxaan moodayay ku yaroo kaanidilha uu dhib badan yahayo intuu xilligaa soo dhacay doonaya inaan odayga kala hadlo albaabkii aan furayba anoo ilaa isku haya la kala hayo waaba ninkaa dheer markiiba waxaa automatic igu soo dhacay alla ma cashadii baad ilowday sheekada cashadana wax yar halkaa iigu taagnaad idinka dabageeyo isaga iyo muunan arkay dhowr jeer isagoo cashadii bannaanka isaga soo saaray oo aan cunin markaan idhi maxaa dhacayna wuxuu dhahay maya iska dhaaf waxaan fahmay markaas inuu cashada ka cagajiidayo ama wax ku arkay ama dhadhankeedu aanay bogo dabadna adeera cashadiisa markaan samaynayn cashadiisana ku dari jiray reerka inta kale isku cashay ahaayeen laakiin isaga iyo adeero wax sokor laga ilaaliyo wax macaan la balaayay ahaayeen waxba iska ilaalin jiray labadoodaba anaa samayn jiray markaa berigii dambe cashadii caadi buu cuni jiray markiiba waxaan isir cashadii badil waxaan ma cashadii baan lagu keenin waxaan moodaan miis hore iyo wax ku ilaab naan naga bayd uun buu dhahay casho lahayn qolkii dalaq soo yiri telefoon waxaad iga qaban weyday message-yada maxaad iga soo jawaab weyday markastaan saada u soo dhawo maxaad iga sii fogaanaysaa markaas waxaan dhahay wax ma kuu sheegahaa haddaad ka hadlayso wixii kale guriga iyo reerka ku saabsan soo dhawow haddaad sheekooyinkii moobilka aad ka hadlaysana macaa moobilkaagii wayga celis walaal aan ammaanisa siino sababtu tay mataqaanaa anigu sifahan gurigiina kusoo galay markaasuu waxaa sifaad guriga kusoo gashay waxaan anigu gurigiina shaqaalan kusoo galay ma waxaad rabtaa in lagu dhahdo gabadhii shaqaala ahayd buu maanijarkii kambaniga guursaday naa maxaa iga galay aniga kambaniga maxaa iga galay shaqaalaha maxaa iga galay waxaad tahay xataa iminka waxaad tahay waxba iga galay anuu adaan kaa helay warcad baan keenan kula shaqays kuma lihin wuxuu dhahay waa inaanu bannaanka isku aragnaa guriga kuma murmo